maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa cabdinaasir dheeg oo sidii caadada inoo ahayd idiin soo gudbin doonaa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadli jirnay waxyaabaha kala duwan. maanta waxa aan doonayaa in aan idinla wadaago barnaamij kooban oo ka hadlaya barnaamijkaasi waxa uu ka hadlayaa runtii waxa uu ka hadlayaa barnaamijkaasi sida haweenku had iyo jeer ama aftahamada haweenka aynu nidhaahnay ayuu ka hadlayaa barnaamijkani. aftahamada haweenka adduunka gaar ahaan haweenka carabta iyo kuwa Soomaalida. bal waxaan soo qaadan doonaa marka hore waanigii mawduucii kan ka horeeyay ama kilibkii kan ka horeeyay ama kilibadii kan ka horeeyay waxaynu ku qaadanay oo aynu qaadaa dhignay ama aynu ka sheekaynay in fara badan maskax furnaanta iyo fariidnimada haweenka Soomaalida. bal maantana waxaan doonayaa inaan wax yar ka taabto maskax furnaanta, fariidnimada, aftahamada iyo foojignaanta haweenka carabta. waxa qiso yaroo kooban baan rabaa inaan idinla wadaago maanta. qisadani waxay dhex martay Xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi oo aa wada garanaysaan oo ahaa hogaamiye ka mid ah hogaamiyeyaashii dawladdii Amawiyiinta oo muddo 20 sanadooda ka talinayay dalka Ciraaq xilligii uu amiirka ka ahaa ama uu ahaa amiirka Cabdilmalik ibn Marwan oo ahaa dawladdii Amawiyiinta. 20 sanadood buu Xajaaj bin Yuusuf halkaa haystay. Xajaaj sidaynu taariikhda ku hayno wuxuu ahaa nin dhaqankiisu aad u qalafsan yahay, wuxuu ahaa nin dhaqankiisu aad iyo aad u kakan yahay. waxa uu ahaa Xajaaj bin Yuusuf nin aad iyo aad u adag. Xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi waxa uu caashaqay gabadh la yiraahdo Hinda ayuu caashaqay. gabadha Hinda la yiraahdaa waa gabadh aad iyo aad u aftahana, waa gabadh aad iyo aad u qurux badan oo Ilaahay qurux iyo aftahama intaba isugu daray oo waxa weeye gabadh aad iyo aad ay ummaddu uga daba dhacdo. Xajaaj bin Yuusuf gabadhii wuxuu shukaamiyaba markii dambe iyada oo aan raalli ka ahayn oo aan ku qanacsanayn ayuu guursaday gabadhii Hinda. sidaasuu ku guursaday Xajaaj bin Yuusuf. markii uu Hinda guursaday ee uu muddo qabay ee ay guri lahaayeen muddo sanada ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah Hinda waxay soo qaadatay muraayad. markaasaa waxay fadhiisatay muraayadda horteedii iyada oo baydad afareeya oo af carabiya tuurtuuraysa oo akhriyaysa. markaasaa waxay tidhi wamaa hindu ilaa muhratun carabiyatun wamaa hindu ilaa muhratun carabiyatun saliilatu afraasin taxallalahaa baqlun fain waladat falilaahi daruhaa وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. maxay tiri Hinda? waxay tiri Hinda وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت فحلا فلله درها وإن ولدت بغلا فجاء من البغل. هند waa gabadh carabiyada oo asala oo waxa weeye nasab iyo sharaf meel isu taagtay. haddii ay dhasho wiil wanaagsan oo geesiya waxa weeye falilaahi daruha, ilaahay baa siiyey. hadday dhasho baqalna bay tiri baqal buu marka horeba ka yimidoo aabbihii baa baqal ahaa. waxay u jeedaa Xajaaj bin Yuusuf bay u jeedaaye. haddaan baqal dhalana bay tiri baqal baa markii horeba dhalay iyada oo dhaliilaysa Xajaajkii ay afadiisa ahaydee saygeeda ahaa. Xajaaj erayadaa markuu maqlay wuu karkaray, sida dherigu u karkara ayuu u karkaray. caguhuu dhulka ku hayn waayey, calooshaa gubatay, ciil iyo cadho adduun baa isugu yimid. madaxaa daartaa leekaaday, faruuryahaa gergeriiray, seeftuu galka ka saaray markaasuu haddana ku celiyaa. seefta Xajaaj bin Yuusuf ma taqaana inay laysa haweenka, laakiin waxay taqaanaa inay ragga dhiigooda ku foordhaqato. hadday nin ahaan lahayd laba cali isma weydiiseen, laakiin waxay ku nabad gashay maadaama ay ahayd gabadh. dabeetana Xajaaj isagoo isceliyey oo isciilkaambiyaya oo ka cadhaysan waxay ku hadashay iyo siday u xaqirtay gabadhaasi ee ay u dhaliishay ayuu ka baxay halkii. wuu ka baxay gurigii, wuu iskaga tegey gurigii. kolkuu gurigii iskaga tegey ayuu nin khaadimkiisa ahaabuu u yeedhay. markaasuu ku yidhi waxaad u tagtaa Hinda, xaaskaygii u tag, 20 kun ee diinaarna u gee. waa lacagtii ka harsanayd meherkeediiya. 200 oo kun oo diinaar buu ku meheriyey baa la yidhi Hinda.
وحكوري لباتن كاكوني دينارنا وجيو waa baaqigii meherkaaga ku dhe waxaad ku tiraahdaa laba kalmadood oo kaliyaata ayaad ku furaysaa labada kalmadood maxay yihiin waxay yihiin kunti fa binti labada eray ee af carabigi marka af Soomaali ahaan lagu fasiro waxay noqonayaan kunti mutazawija waxaad ahayd gabadh guri leh fa asbahti al'ana mutallaqa imikana waxaad noqotay naag la furay oo garooba oo aan guri lahayn ayaad noqotay markii horena gabadh guri laad ahaydoo afa hadeerna waxaa tahay gabadh la furay oo aan guri lahayn oo garooba ayaa tahay haddaad labada kalmadood kalmad saddexaad ku siyaadiso qoortan ka jarayaa buu ku yiri khaadimkii Hinda ayuu u tagay oo gurigeedii iska joogta markaasaa wuxuu ku yiri labadii kalmadood buu ku yiri markuu labadii kalmadood ku yiri ayuu 20,000 diinaarna ku yiri waxa iigu soo ka dhiibay Xajaaj markaasaa waxay ku tiri maadaama aad bushaarada wanaagsan ee furitaanka ii keentay 20,000 dirham adigu u qaada baqshish may qaadan 20,000 ninkii u keenay ee uu soo dhiibay Xajaaj ayay baqshish u siisay 20,000 Allahu akbar maxaa dhacay inta kadib waxay tiri Hinda كنا فما فرحنا فبنا فما ندمنا markii hore uu i guursadayna kuma faraxsanayn hadda uu furayna kama murugaysni bay tiri kolkii hore uu i guursadayba kuma faraxsanayn hadda uu i furayna kama murugaysni sidaasay ku dhawaaqday gabadhii la oran jiray Hinda markii hore uu i guursadayba kuma faraxsanayn hadda uu i furayna kama murugaysni oo kama xumi intaasay u celisay maxaa dhacay markaa sidaas ayuu ku furay Xajaaj bin Yuusuf Hinda dabeetana muddo iska joogtay nin ku dhaca oo guursada waa la waayay waayo nin waliba wuxuu ka baqanayaa ma gabadhii Xajaaj bin Yuusuf furay ayaad guursan kartaa ku kaataa nin oo aqaanaa cid ku dhacdo waa la waayay dabeetana Hinda maxay samaysay Cabdilmalik bin Marwaan oo amiirka muuminiinta oo aanay cidi ka sarreynin oo dawladda Amawiyiinta isagu madax u ayaa waxay u dirtay rag shucara lacag bay siisay dabeetana waxay tiri ninka amaantayda ka dhaadhiciya nimankii shucarada ahaa gabadhii Hinda amaanteedii bay ka dhaadhiciyeen amiirkii Cabdilmalik ibn Marwaan way ka dhaadhiciyeen sidii kolba gabay ugu sheegayeen ama ay afaray ugu agtuurayeen ayaa waxay ka dhaadhiciyeen oo qalbigiisii ay ku rideen quruxda iyo qiimaha gabadha Ilaahay siiyay ayay ka dhaadhiciyeen amiirkii dabeetana amiirku wuxuu u diray nin kamida khaadimiintiisii ninkii baa gabadhii soo sahmiyay wuu ku soo noqday Cabdilmalik buu ninkii ku soo noqday markaasuu ku yiri wallaahi gabadhaasi wax ceebaho ay leedahay haba yaraatee ma jiro waa gabadh qurux iyo qiimo Ilaahay siiyay iyo aftahanimo intaba dabeetana Cabdilmalik sidaasuu ku aqbalay in uu guursado gabadhii Hinda kadib waxay u soo qortay warqad waxay ku tiri warqadii ay soo qortay waxay ku soo qortay ee ay u soo dirtay Cabdilmalik ibn Marwaan ama amiirkii muuminiinta ee guurkeeda doonayay waxay ugu soo qortay warqadii u horeysay ee ay u soo dirtay innal inaa qad walaga fiihi alkalb weelka ay baa wax ku cunay boqorow amiirow weelka ay baa wax ku cunay iyada oo xaqiraysa Xajaaj bin Yuusuf ay ka dhigaysa oo xaqiraysa markaasaa wuxuu ugu soo jawaabay boqorkii faqsilihi sab'an ihdaahunna bituraab 7 jeerun maydho midkoodna ciid ha ahaato waa sidii ay shareecadu qabtay intaasuu ku yiri 7 jeer oo ay midkood ciid tahay uun maydh buu yiri dib ma lahe inta hadii la isweydaarsaday markay sheekadu halka marayso ee inta la isweydaarsaday ee uu boqorkii ama amiirkii aqbalay in uu guursado Hinda ee la isfahmay ayaa waxay tiri Hinda waan aqbalay boqorow amiirow waan aqbalay guurkaaga waan ka aqbalay hase ahaatee hal shardi baan kugu xidhayaa waxaan doonayaa bay tiri anigu marka adiga la ii ka keenaya awrka la isoo fuushin doono ama awrka aan soo fuuli doono rakuubka aan soo fuuli doono bishardi waa inuu Xajaaj hoggaankiisa haya oo uu igu kaxeeya dabeetana boqorkii amiirkii wuxuu Xajaaj amar ku siiyay in uu awrkay Hinda fuusho ku kaxeeyo ilaa uu ku geeyo halka uu jooga amiirku waayahay safar dheer baa la galaya sidaas sheekadii lagu waday
dabeetana xajaaj bin yuusuf awrkiibuu u qabtay ay hinda fuushanayd ayuu hoggaankiisa qabtay waxay socdaanba hinda waxay dhulka ku tuurtay dirham markaasay ku tiri ii soo qaad dirhamka waryaa inanka adeegahow dirhamka ii soo qaad iyadoo ku jeesjeesaysa markaasaa wuu soo qaaday dirhamkiiyo show waxay tuurtay dirhamba muu ahayna diinaar buu ahaa deedna xajaaj wuxuu ku yidhi waxaa tuurtay dirhamba maahee waa diinaar markaasaa waxay ku tidhi haa waxaan tuuray ma diinaar baa ee dirhamba maaha alxamdu lilaahi aladii abdalanii dirhama bidiinaar waxa mahad iska leh ilaahii dirhamkii aan tuuray iiga dhigay diinaar ee iigu beddelay baa iska mahadle iyadoo ujeedda maxay ilaahii adiga kaa dhaafiyee cabdilmalik binu marwaan iiga dhigay afo ayaa mahadle halkaa markay sheekadu marayso xajaaj isaga oo cadhaysan oo goolol badan laga dhaliyey oo tu horena qabay tu dambana u raacday waxa la soo gaadhay halkii uu joogay cabdilmalik ibnu marwaan magaaladii baa la soo gaadhay casuumaddii baa la diyaariyey dad badanoo madaxweynaa ku diyaara meesha acyaantii magaaladoo dhan baa meesha ku diyaara waxa meesha ku diyaara dhammaan dadkii xukunka hayey iyo dad kaloo fara badanoo shacaba maxaa dhacay markaa waxa dhacay xajaaj wuu ka habsaamay inuu gala halkii casuumadda lagu cunayay buu ka habsaamay dabeetana waa laga hor qadeeyo casuumaddii baa laga hor cunay dabeetana cabdilmalik ibnu marwaan baa yidhi ha loo yeedhay xajaaj baa loo yeedhay markaasuu yidhi dee casuumaddii way ku dhaaftee soo fadhiisoo horta wax cun markaasuu xajaaj yidhi naxnu qowmun laa na'kulu fadalaati arijaal anigu waxaan ka soo jeedaa qoom aan cunin hambada ragga muxuu yidhi xajaaj waxaan ka soo jeedaa anigu qoom aan cunin hambada ragga isagoo u jeeda gabadhan aad guursanaysa ee aan muxuu ahaa aad afada ka dhiganaysaa waxa weeye waa aniga hambadaydii buu u jeedaa waa aniga hambadaydii cabdilmalik binu marwaan markuu intaa maqlay isagana calooshaa gubatay aad buu u warwaray markaasaa wuxuu khaadimiintiisii amar ku siiyey in hinda qasri gaara la geeyo oo aanu ka ag wareegin oo aanu u tegin hinda isla markiiba khidadii bay fahamtay sheekadii xajaajna waa ay maqashay markaasaa waxay samaysay khiyaamo waxay isticmaashay sixirka xalaasha ma taqaanaa sixirka xalaasha waa sida ay haweenku ragga u soo xerogeliyaan iyagoo isticmaalaya xeeladahooda kala duwan ee aan xaaraanta ahayn sixirkan sheegaya maaha kii xaaraanta ahaa maaha anigu sixirkan sheegaya waa sixirka xalaasha ah baa la yidhaahdaayo waxa weeye waa habka ay dumarku u soo jiitaan ragga ama ay u soo xerogeliyaan bal hadda dhegayso qisaday ku soo xerogelisay cabdilmalik ibnu marwaan gabadhaa hinda siday u soo xerogelisay gabadh ka mida jaariyadaheediiba u dirtaa waxaad ku tiraahdaa amiirka hindi waxay ku tiri waxaan kuu leeyahay muraad aad iyo aad u muhiime fadlan hore iigu kaalay boqorkiibaa u yimid markuu amiirkiibaa u yimid cabdilmalik baa u yimid markuu gurigii hinda soo galay ilaa waa xaaskiisii markiiba waana naag ilaahay qurux iyo qiimo siiyo hilbaheeda aad yaabayso oo ishii aragtaa ay ku dhaygagayso maxay samaysay markuu u soo galayba maryihiibay iska dhigtay xijaabkiibay iska rogtay dabeetana amiirkii quruxdeedii markuu arkay iyo hilbaheedii waa ishayn kari waayey markaasuu yidhi maa gabadha noocana uunbay rag iyo caayayeen aad iyo aad baan uga xumahay in aan kaa raago oo aan intaa kaa maqnaado raalli iga ahow gef baan kaa galay xajaaj bin yuusuf sheekadiisu runtii gabadhaasi ay ku samaysay waxay noqotay waa arrin taariikhda gashay waa gabadhii dhulka la dhacday ee waxa weeye xajaaj bin yuusuf dhulka jiidjiiday ee waxaynu odhan karnaa xajaaj bin yuusuf sida fiican uga guulaysatay ee aftahamada leh yacni waxay ku tusaysaa taasi aftahamada ay haweenka muslimiintu leeyihiin haweenka soomaaliduna qaar badan oo kuwaa dhigooda iyo qaar kaloo badanba waa leeyihiin waa inoo iyo qisaska dambe iyo sheekooyin kale oo xiisa leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin ciid mubaarak baan idin leeyahay dhammaantiin kullu caam wa antum bikhayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu